runtii waxyaabaha isweydiinta la waxay ayadoo naloo sheegayo dekada kaligeeda inay dhowr malyan ka soo lacagtaas meesha ay aad runtii waa su'aal ay tahay inaan isweydiin sababtuna inaan cod ku dhibayna ma aha laakiin mas'uuliyadda caamka ayaa keenaysa in laga hadlo waxyaabaha ka soo kala dekada airportka canshuuraha dakhliga oo dhan meel ka yimaadaba waa wax ummadda ay wada leedahay waxa loo bixinayaa in ummadda loogu adeego waa marka lacagaha intaas la eg inay soo galaan oo ciidamadu ay mushaar la'aan ahaadaan runtii waxay muujinaysaa fasaadka iyo corruptionka meesha doorashadaanu xilliga loogu talagalo waa dhaaf maalin walba muddo la qabtaa maalin walba muddo la qabtaa ilaa hadda lama hubo waqtiga ay dhacayso ma isweydiisay waxaan oo dhan maxay u dhacay waxaan u malaynaa kursiga waa la jeclaa karaa laakiin waxa la rabaa kursiga waxa lagu joogi karaa sharci kaliya madaxna waxa laga rabaa wixii ballan qaaday inay ku dadaasho inay fulin haddii dekada ay ka soo galayso 6 milyan ama 7 milyan ama 7 milyan oo doorashada aad jidido maalin walba qasnada dawladda lacag ka soo qaadido kaambeenka ku gashay dadka kale oo kaambeenka kula jirana dakhligooda uu kooban yahay ama aysan haysanin ujeedada wax loo jiidayo marka waa cadaa karta in hanti la boobo ummadda la gaajaysiiyo murashaxiintu ay daalaan dadku ay daalaan markaas laga faa'iido laakiin waxaan leenahay madaalayno diyaaraan nahay dicaayad kasta la sameeyo lacag la'aan in la ahaado ceeb ma aha laakiin ceeb waxa in tuug la noqdo madax ma lacag la waayay mas wax kale lacag lama weyn lacagta ugu badan soo gashay dawladda hore oo dhan waa ka laakiin lacagtu markay jaab gaara gasho isma sheegayso waa garad Soomaaliya laakiin waagi hore wuxuu naas madaxweynaha walaalkay xasan shayaabaha aad dhigteeda u soo jiito waxa kamid ah waxaan ballan qaadaynaa saddexda waqti in miiska wax loo saaro qofka Soomaaliga oo wax ma dhacdo arintaas bilcagsi yaana marka aad fiiriso lixda qodob oo sheegay madaxweynaha kulligooda mid kasta waa cagsi waxaan xasuusanaa amniga waa priority koobaad waa labaad waa saddexaad intaas waa huba inuu sii dhaafin kala ma hubo amniga laga shaqeeyo maanta aan ku naalooleyna xagoo jooga magaalada dhan waa kala xirantaa meel aadagta mal waa garad Soomaaliya dalkan maanta wuxuu u baahan yahay cid badbaadisa ka shaqeysa nabadiisa horumarintiisa ka shaqeysa ayuu u baahan yahay waxyaabaha aan isweydiiyay marka waxa kamid ah erayga lagu soo celiyo oo qabyo ninkeeda dhameystir ma isweydiina harta qabyo ninkeeda dhameystir goorma la yiraahdo shay ka tamid ku jirta qabyo ninkeeda dhameystir waxa la yiraahdaa qof hawl loo diray shaqada loo soo qabo waayay lagu khasbaayo inuu qabto shaqadii hal qabyo ninkeeda dhameystir raal ah shaqadaas ka soo dhameystir tan shaqo khasaba ma waa shaqo adiga aad dooranayso waa shaqo lagu dooranayo waa shaqo qaran marka munaasabad lama laha xiriir lama laha mahmaayadaan meesha ay soo gashay madaxweyne hadiiba aad qabiyeysay shaqada lagu doorto oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacdo arintaas waxaan u maleynaa xaq u maleyd marka la isu soo anaga waxaan ka hadalnay in faragelinta laga dhaafo shalay waa ka hadalnay maantana waa ka hadlaynaa laakiin anaga dawlad gaar ah farta aan ku fiiqayno ma jirto qof kasta wuxuu sameeynaa asaas taas waa qaybta hore qaybta labaad waxa ay Uganda waa deganahay ilmahayga jooga inaan deganahay macnaheedu ma inay taageerayaan Kenya waa soo maraa waajidkaygii inay taageeraan macnaheedu ma aniga rajada aan ka qabo inaan madaxweynaha horta 100% waa ku sheega madaxweynaha soo socda waa aniga hadda ku talagal lacagta xasan sheekh waa bixiyay laakiin codka asagu ma laha